nabadda wadayaal dhamaantiin meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada warbixintan waxaynu ku eegi doonaa dhacdo la yaab leh oo lagu arkay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. haddaba degmada Afgooye waxaa xalay lagu arkay laba libaax oo ceyrsanaya neef lo ah oo kamid ah looda dhex joogta magaalada Afgooye. mid kamid ah kaamirooyinka ku xiran goobaha ganacsiga ee ku yaala degmada Afgooye ayaa qabatay laba libaax oo ceyrsanaya neef lo ah oo markaasi ka cararaya. labadan libaax ay qabatay kaamirada ayaa ah laba aar oo aad u waaweyn labana oga sida ay ugu suurto gashay inay gudaha u soo galaan magaalada Afgooye. dad badan oo daawanaya muuqaalkan ma aamini doonaan, balse waxaa nala wadaagay ganacsadihii iska lahaa goobta ganacsiga ay ku xirneed kaamirada, kaasi oo jiifay isla goobtiisa ganacsiga kadibna sheegay inuu maqlay codka libaaxa, sidaasina uu ku fiiriyay markii waaga uu bariyay kaamirada, balse uu ku arkay arrin la yaab leh oo ah libaaxyadan oo ceyrsanaya neefka looda ah. shacabka degmada Afgooye inta badan ma oga dhacdadan, balse waxaa jira warar bulshada isla dhexmarayeen oo ahaa in libaaxyo raxan u socday lagu arkay deegaano badan oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose. libaaxyadan ayaa waxaa horey loogu arkay baa la yiri gobolada Bay iyo Bakool, waxaana loo badinayaa inay ka soo gudbeen dhinaca Itoobiya. haddaba si rasmi ah anaga uma xaqiijin karna in muuqaalkan ay duubtay mid kamid ah goobaha ganacsiga ee kaamiradan ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose laguna arkay libaaxyadaasi saaca ceyrsanaya gudaha magaaladaasi, balse mid kamid ah ganacsatada degmada Afgooye oo sheegay in goobtiisa ganacsiga ay ku xirneed kaamiradan ayaa waxa uu nala wadaaga muuqaalkan isagoona sheegay markaa in kaamirada ku xirneed goobtiisa ganacsiga ay muuqaalkan duubtay ee la yaabna ay ku noqotay. haddaba haddii aad joogtay degmada Afgooye oo arrinkan aad maqashay ama cid hadal haysa aad aragtay, fadlan nagula wadaag qaybta commentiga.